Salem oo xilka gudoomiyaha talada haya iyo kan ra'iisul wasaaraha Ethiopia iska casilay 15 bishii hore ee Febraayo kadib markii uu wajahay qalalaas siyaasadeed iyo rabshado hareeyay inta badan gobolada dalkaasi Ethiopia. Abiy Ahmed Ali oo ah 40 sano jir waxa uu ku jiraa siyaasadda Ethiopia wax ka yar 10 sano ka hor inta uusan ku biirin aqalka wakiilada sanadkii 2010 waxa uu noqday generaal darajo sare ka gaaray ciidanka militariga Ethiopia. Sanadkii 2007 waxa uu aasaasay kadibna madax ka noqday hay'ad sirdoon oo dhinaca internetka ah oo ay leedahay dowladda Ethiopia ayaa ku sheegtay hay'adaasi in awoodda tiknoolajiyad ee Ethiopia ay horumarisay balse hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay in loo adeegsanayay in dusha lagala socdo dhaqdhaqaaqa mucaaradka iyo kuwa dowladda lid ku ah. Ahmed waxa uu wax ku bartay dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ka hor inta uusan dib ugu laabanin Ethiopia oo uu ka qaatay shahaadada PhD macadka nabadda iyo amniga ee jaamacadda Addis Ababa kadibna waxa uu noqday wasiirka sayniska iyo tiknoolajiyadda Ethiopia. Abiy Ahmed wuxuu ku hadlaa luqadaha Amhariga, Afaan Oromo iyo Tigrinya. Waxaa iska dhalay hooyo Masiixi ah iyo aabbo Muslim ah. aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haddaba maxaa magacaabista Abiy Ahmed ay uga dhigan tahay shucuubta Ethiopia gaar ahaan kan Soomaalida? Waxaa arrimahaasi falanqeynaya Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka ee Ethiopia. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo stuudiyaha ugu helaya ayaa wareystay waxaana ugu horreyn uu weydiiyey hanaanka loo maray in Abiy Ahmed loo doorto gudoomiyaha xisbiga EPRDF. golaha EPRDF qowmiyaduhu ay ka kooban yihiin sida Axmaarada, Oromada iyo qowmiyadda Koonfurta iyo Tigreegu ayaa xubno waxaa ka yimaada 45 xubnood markaa ka bacdi Ihdig Markabeed bay yiraahdaan oo ay la yiraahdo golaha dhexe ee xisbiga EPRDF oo tiro guud markaa isku noqonaya 180 xubnood. 180 ka xubnood ayaa markaa ka bacdi dooranaya oo musharaxiin baa qowmiyad waliba ka imanaya, qowmiyadda Axmaarada, Tigreega iyo Oromada iyo markaa ka bacdi qofka markaa ugu codbata ayaa prime minister ka noqdo. marka hadda waxa warar ay sheegayaan inuu helay 108 xubnood ayuu ka helay 180 xubnood. marka halkaas qiyaasta dadku qaarkood waxay leeyihiin 45 gobolka Oromada iyo 45 gobolka Axmaarada iyo 18 xubnood oo kale oo qowmiyadaha kale ee ama ha noqdaan Koonfurta ama Tigreega ayuu 18 xubnood oo kale ka helay. marka saas uu ku noqday gudoomiyaha xisbiga EPRDF. waan gartay waxa jira qowmiyado kale oo ku nool dalka Ethiopia. waxaad sheegtay in ururka EPRDF uu ka kooban yahay 4 qowmiyadood ee Tigreega, Amhariga, Oromada iyo ummadaha Koonfureed ku leeyahay Southern Nations. dadkii kale maxay uga dhigan tahay codkoodii meesha kuma jireen? walaal taariikhda marka dib u raacdo labadii prime minister ee ka horeeyay ama labadii gudoomiye xisbi ee ka horeeyay Abiy Ahmed marnaba kuma lahayn cod. meesha lagu dooranayana ma ay fadhiyaan qowmiyadda Soomaalida, Heredida iyo qowmiyadda kale ee la yiraahdo Gambelaga iyo qowmiyadda Benishangul iyo Angumus iyo Afarta. marka weligoodba ma aynan meesha fadhiisan jirin qowmiyadaha kale ee afarta ah unbaa dooran jiray prime ministerka. haddana sidii weeye dhaqankii jiray unbaa sii socda. marka qowmiyadaha kale waxaa la yiraahdaa affiliate party ama agaar waxa ay yiraahdaan gacan saar bay xisbiga EPRDF la leeyihiin. marka waxay ku qasban yihiin wax kasta oo EPRDF soo go'aamiso inay iyaguna qaataan. waan gartay haddaynu u gudubno dhinaca ismaamulka Soomaalida Ethiopia doorashada in uu noqdo madaxa xisbiga Abiy Ahmed oo lagu wado inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga Ethiopia maxay uga dhigan tahay xaalku markaad eegto Soomaalida iyo Oromada muna wanaagsan xilladii dambe oo isfaham waaba jiray isbedel ma ku iman doonaa maamulka gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia bal xaalku sidoo noqon doonaa? walaal markaad eegto isku dhacyadan hadda dhacay waa uu ka duwan yahay isku dhacyadii dhici jiray ee ka dhaxeeyay oo qowmiyadda Oromada iyo Soomaalidu. wuxuu iska ama ahaan jiray ama lagu xallin jiray dhaqan ay dhexdooda ah wax iska wuxuu ahaa dhul iyo waxyaabo saas oo kale ah
waa xalkooduna uu iska fududaan jiray. laakiin hadda waxaad moodaa intii dambe inay noqdeen dagaalo siyaasadaysan oo arrimaha siyaasadda dalka ka jirto iyo kacdoonadan salka ku haya. haddana waxaan rajaynaynaa abiy axmed haddii uu prime minister noqdo inuu u noqonayo qowmiyadaha dalka oo dhan, uuna u noqonayn keliya qowmiyadda oromada. uu prime minister dalka Ethiopia uu noqonayo, magacaas titlekaas ayuu qaadanayaa. arrimaha deegaanada ka dhacay isku dhacyada iyo dalka oo dhan inuu reform geliyo oo isbedel ka dhaco yaan rajaynaynaa. waa haddii uu noqdo prime minister awoodiisa leh oo looga dambeeyo talada. markaad eegto dalka oo dhan kacdoonna ayaa ka jiray qowmiyadda axmaarada iyo oromada. kacdoonnadaasi ayaa horta keenay ninkan in uu meesha yimaado prime minister loo doorto. isbedelkaa keenay ee shacabka in la dhegaysto ayaa waxay keeni doontaa in qowmiyadaha kale ee deegaanada kale ee sida soomaalida in iyagana shacabka deegaankaasi la dhegaysto. waxaana filaynaa in uu isbedel ku iman doono xagga soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee aanan ahayn soomaalida sida cafarta, gambeelaaga iyo qowmiyada kale ee la yidhahdo benishaangulka. marka waxaan filaynaa inuu isbedelkaasi guud shacabku dabada ka riixayaan inuu saameyn doono qowmiyadda soomaalida laftirkeeda, uu isbedel dhici doono. haddii uu sii joogo iyo haddii uu ka tegaba waxaan filayaa madaxweyne cabdi maxamed cumar inuu isagu laftirkiisu uu legacy kaga tego dadkaasi dhibaatada iyo rafaadka jiraayna oo wax ka qabto, shacabkiisana uu ka daayo dhibaatada, meeshaasina ay noqoto deegaan nabad ah oo isbedel nabad ah uu ka dhaco oo peaceful transition ah sida Ethiopiaba hadda ay u doorteen ra'iisul wasaare cusub. in deegaankaasuna uu noqdo uu isaguna facilitation sameeyo in dadkaasi cidda ay rabaan ay doortaan, isaguna uu magac kaga tego inta uu xilka hadda u hadhay. haddii uu sii joogana uu ku joogo sharaf iyo wanaag, dadka masaakiinta ee deegaankaasi uu mas-uulka ka yahayna uu u naxo. weliba waxaan dhihi lahaa dadka xidhxidhan ee deegaanadaasi ku xidhan ama cadaalad darra lagu xidhay ama aan sharciga loo marin in ooda laga qaado. dadka dhulka sida sharci darrada looga qaaday sida deegaanada jigjigo oo kale dad badan oo cabanhaya ayaa jira. dadkaana dhulkoogay loo celiyo. cadaadiskan faraha badan ee ama guryahan la iska xidhahayo, hantidan shaksiga loo leeyahay sida ganacsiyada la iska ootay in faraha laga qaado. waxaasoo dhan waxay keeni kartaa isku soo dhawaansho shacabka iyo maamulka markaa meesha ka jira. xirsi cabdulqaadir maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaa jiray baarlamaanka federaalka ah ee Ethiopia, khadka telefoonka ee gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka ayuu ugu waramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo